علي جامع بوريد oo ah wasiirka kalluumaysiga ee kheyraadka badaha ee Soomaaliland ayaa sheegay inay wadaan qorshe ay cadeymo ugu sameynayaan kalluumaysatada xeebaha Soomaaliland. hawshaas waan noo socotaa gobol baan afarta gobol oo badda lehna way waa laga wada bilaabay qaybtood gobolka saaxil waa la soo dhameeyay ilaa 300 iyo siyaada kalluumaysatada baa laga soo diiwaan galiyay oo maartay la soo sawirada laga soo qaaday macluumaadkii laga soo ururiyay qof walba wuxuu doon leeyahay muxuu ahaay kalluunkii aduu kalluumaystay yahay magaciisa sawirkiisa marka hadda waxa lagu wadaa processkii kaararka loogu sameyn lahaa gobolada kalena isbuuca kana saddex gobol kana hadii alla idmo sida qorshe noo yahay loo amba baxaya waa doctor inuu xilliga xagaaga ahaa badda kullaanaysa baa la soo galay marka waxaan rabnaa inaan ka hormarino inta aan badda aad u kicin oo ay wali kalluumaystada ka xagaa bixin. wasiirkan oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaraddiisa ee magaalada Hargeysa ayaa sidoo kale waxa uu halkaas ka sheegay inay ka cabanayaan doonyo uu xusay inay sifa sharci darro uga kalluumaystaan meelo ka mid ah xeebaha Soomaaliland kuwaas oo ka soo qaatay kuwa laga leeyahay dalka Yamanta oo runtii farakul ina ku hayso oo aad u fara badan dadka xeebaha ama maaragtay deegaanada ay macaamil la leeyihiin oo aan rabno hadii kalluumaysatada aan diiwaan gelino hadda tababar baan wadnaa dhowr meeloodna waxa laga wadaa in qaboojiya laga sameeyo hadii qofkii barafkii loo helo tababar loo helo shabaagtii qalabka ku kalluumaysan lahaana wixii la gaarsiin karo la helo ama dhinaca bariga haato ama galbeedka haato hadii mashaariicda isla jaan qaadaan idigu marka ba ka hadlaysaan laashka Yamanka baa soo gali doonin ama midka Djibouti ka yimaada ayaan soo gali doonin wadankeena hadii aynu helo kalluumaysatada inaga ah oo baddi galayso oo shaqaysanaysa.